الله أديك آمنا يو التكاثر ألهاكم iyaduna suuradda hore sideedoo kalun bay u hadlaysa iyo inuu dambeeyo maalin la yaab badan oo haddii qofka muuminka ahi maanta cilmul yaqiin uu hayo macnaha cilmigeennu waa cilmi aynaan arag laakiin ogaanay oo ilaahay ka rumaysanay maalinta caynul yaqiin baa loo arkay oo horteenna iman doonta bal iyadoo maalinkaasi uu dambeeyo iyo naaraha ku dhex sugani mar hadda dadkiina halku maraya intaynu ifkan joogno bismi illaahi araxmaani araxiim alhaakum waxaa idin habsaamiyo idin mashquuliyey oo idin dawakhiye attakaathur badsasho xataa zurtumu lmaqaabir jeeroo booqateen xabaalaha takaathurku waa dad iyo duunyo ehel iyo asxaab adduun noocyadii oo ay badsadaan dadku ilaahay baa xusa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث انت صورنا بغاشكي الدنيا ده ايا لو قرحي markaasuu qofku ka daba dhacaya habeenkiibuu ku fikiraya maalintiibuu ku toosaya caqligiisa iyo saacadiisa ku buuxsan daa lama laha wadayaco tuur lama laha laakiin waxa uu u ilaaway aakhiradana u ilaaway attakaathur ilaa xabaasha ka gasheen oo qofkii iyada oo xabaasha uu galayo iyo geerida intaba uu ilowsan yahay haafil uu ka yahay qaybina aanay rumaysnaynba ayaa naxashka la saaraya dabeetana waa lagu caraabinaya iyadoo tigidhku meel kale uga go-an yahay ayuu xaggan u caraabaya waa hubaal wey xataa zurtum lmaqaabir xadiidkii saxiixa waa fasiraya النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي وكل لوليا أو كتوسيا كسيحنيا حولها لا سوهيا dadka waxay isu seegaan u caayuuru fayo xoolahayga bulay wahalaka min malik xoolahaaga miyaad ku leedahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa ma akalta faafnayt aw labista faablayt aw tasaddaqta faamdayt hadda xoolahaaga saddex un baad ka leedahay xaqiiqanimo marka la eego wixii aad cuntay ee xagga dabaad ka dhigtay iyo wixii aad gashatay ee aad markaa baali ka dhigtay ee ka dharkii ka madhay weey ka ku yaala shandada ma ka dad baa loo qaybin doonaa oo jinaasada dharkeeda hayna tusina baa la oran doonaa inaga siisiya masaakiinta hebelkii dhintay baa lahaa iyo wixii aad sadaqaysatay hore aad u sii marsatay intaas un baad ka leedahay wama siwa dalika fadhahibuhu wa tarikuhu linnas wixii intaa ka soo haray waanaad ka tagi doontaa dad baana yeelan doona dadku haba ku dhawaadeen oo islaamtaadii iyo ubadkaaga iyo aabaha iyo hooyada haba ahaadeen laakiin de adiga maaha waa dad weey haddaad doontaan ku dafiri doono qiyaamaha kugu gacan sayri doono yawma yafirul mar'u ila laydiye day doonaan ka carari doonaba kuwaas oo haray alaakum at-takaathur hatta zurtumul maqabir marka qofku waa inuu barnaamijka yeeshaa maalka sikada ka soo haray bajadu baaskareeyo yoomkii iyo bishii iyo sanadkii iyo baaskareys ciduu dee markaa ugu talagalay uu siiyo qorshaysan qobaal socdo waajib tafasiirta qaarkood aan aad u qawi ahayn baa waxay tilmaamayaan inay carabi sufaantay wallahi annaga idinka badan tiradii baa dabeetana xoogaa la isku yara celceliyo qaarkood baa waxay yidhaahdeen sanadkan geeridaan ugu badnayd markaa dad badan baa naga dhintay alxabaalahaan soo eegnay kaalaya inta hebel iyo inta nin uun nin door intii nin iyo halyeygii way rawaxeen sanadkii xabaalihii ay soo tiriyeen kolkaasaa dabeetana geerida intii dhimatayba marka lagu daray ayay qoladaasi badatay way ku dhawaanaysaa soomaalidu inay xabaalaha isla tagaan ayay ku dhawaanayaan xataa zurtum lmaqaabir kalaa waxa dhaba buu ilaahay ama kalaa sidaa ha yeelina sawfa taclamuuna hadhow ba idin ogaan waa marka geeridu timaado uma kalaa sawfa taclamuun hadhow ba idin garan doontaanoo qiyaamaha ah kalaa waxa dhaba low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen cilma alyaqiin yaqiin dhab ah haddaa u ogaan lahaydeen lamaa facaltum dalik arrintaa maydaan samayseen macnaa yaqiinta dadka ka daciife oo ka rumaysane ku talagalsan laftiisu ilaa heerka waxaan dambeeya markaa kuma talagalayo uma rumaysna rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo macrifo dheer ilaahay uu siiyo aakhira iyo rabbigiisaba aada u yaqaanee waxa uu leeyahay low taclamuuna maa aclam
ladaxiktum qaliilan walabakaytum kaiira haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay aniga waa la ii nuuriye oo way ii baxsan tahay oo hortiisaaba kuwa xabaalaha lagu dubaynaya hebelada la garaacayo la cadaabayana wuu maqli jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu lahaa jiniyo insi mooyaane waxa kale way maqlayaan xooluhu waa kuwa ka didaya xabaalaha qaylada ka baxaysa wuu arkayay nabigu laba xabaalood buu lahaa kuwan waa cadaabay la way kadaadeen buu lahaa kuwan ahlu naarka la tusay ahlu jannaha la tusay haddaa ogaan lahaydeen wax yarna waa qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen buu nabigu calayhi latarawunna aljaxiima naartaa saydin arkeeda indhaha saari uma latarawunnaha waydin arki doontaan cayna alyaqiin yaqiintii isha ahayd ishiinaa arki doonta tudrikuunahaa bixaasati lbasar ishaydin saariba uma latusalunna waa laydin weydiin yowmaydin maalintaa can innaciim barwaaqada iyo khayrka ilaahay idin siiyey ayaa laydin su-aali doona rasuulku sala allahu calayh wasalam maalin buu harka digtiisa duhur qoraxda kulushuu soo baxa abubakar iyo cumarna way soo baxeen saddexdoodii baa kulmay or maxaa ku soo saaray waqtigan mahaasati iyo mid waliba waxay isla qireen in uu busaaradii soo saarta iyo qadala-aan iyo gaajo oo dabeetana gurigiiba uu jiifiba kari waayey maxaynu idhahnaa taa ma rag may ahayn baynu idhaha iyo maxay u shaqaysan waayeen ay qamadii u doonan waayeen ma nacasyaal bay ahayn baynu idhahna maya ma rag ka saahiday oo iyagu meel kale doortay bay ahaan oo markaas halkaa nafta usii carbinaya usii leelaya nin saxaabiya haddii ay mareenna ninkaasi wuu soo dhaweeyeyoo waxa uu siiyey biyo iyo timir iyobuu siiyey wuu casuumay dabeedna nebigu aayaddan uu akriyo waxau idhi latus'alunna yawmaidin can innaciim wala nicmadan waa laydin weydiin doonaa nicmadaa kala noocnooca waa laydin su-aali buu nebigu yidhi waa waxaa laynooga baahay inaynu xusuusanno marka calafka iyo oonta ilaahay uu ina siiye aynu cunno aqawadiinoo ha odhanin inta hebeloo kale maan helini iyo haddii aan sidaa hebel u raaxaysan lahaa iyo miyaanu halkaa gaadhnayo waanu rafaydsanno waanu gaajaysannahay ha odhanine mar hadday kada nicmada ilaahay uu siiyey suurat alcasr